kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan ku soo dhawaada wararka caalamka. Qodobada wararka caalamka ugu doorka roona waxaa ka mid ah xaaladda caafimaad ee Joe Biden oo laga dayrinayo, burburkii reer galbeedka oo soo dhawaaday. Qodobadaasi oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan wararka caalamka. mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal aynu ku bilownaa. labada xisbi mucaarid ee Somaliland ayaa ku dhawaaqay inay gebi ahaanba guuldarro ku soo idlaadeen dadaaladii bishii ugu dambeysay laga dhex waday iyaga iyo xukuumadda talada haysa. gudoomiyaha xisbiga mucaaridka UCID injineer Faysal Cali Waraabe oo uu wehelinayo dhigiisa xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa sheegay in ergadii labada dhan u kala dab qaadaysay ay ku wargeliyeen in hawshu sidii la rabay ay ku soo dhammaan weyday, tan oo ka dhigan inay halkaasi ku soo idlaatay waanwaantii lagu howlanaa. geesta kale labada xisbi mucaarid ayaa si wada jira u soo saaray doodooda iyo mowqifkooda ku aadan doorashada guud iyo xisaabta qaranka, iyaga oo tahay qodobada sharci ee ay u cuskadeen doodooda iyo sida loo waajahayo doorashooyinka soo socda. afarta qodob ee xisbiyada mucaaridku ay u cuskadeen doodooda ayaa kala ah: 1. doorashada madaxtooyada. xisbiyada Somaliland ayaa guud ahaanba gaashaanka u daruuray in wax muddo kordhina loo sameeyo xukuumadda haatan jirta, iyaga oo sheegay in aanay waqti xaadirkan taagnayn wax dib loogu dhigi karo doorashada ku astaysan 13 bisha Noofembar ee sanadkan. qoraalka xisbiyada ayaa lagu yidhi ma jirto waxaba yaraatee ka dhiman doorashadii madaxtooyada. muddada ay doorashada madaxtooyadu ku qabsoomaysaana waxa ay ku cayiman tahay dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland, qodobkiisa 88aad farqadiisa koowaad iyo qodobka 10aad ee xeer lambar 19/2020, kaas oo sheegaya in muddaxileedka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisuba ay tahay muddo 5 sano ah. xisbiyada ayaa sidoo kale qodobkan kaga soo horjeestay inay doorashada ururada laga horumariyo ta madaxtooyada, maadaama bay yidhaahdeen taasi ay meesha ka saarayso xaqii dastuuriga ah ee musharaxiinta siinayay in ay xilka dalka u sarreeya u tartami karaan muddo 2 xilli doorasho ah. mucaaridka ayaa ku doodaya in guud ahaanba aanay jirin wax ku horgudban qabashada doorashada ee sanadkan ku beegan. qodobka labaad ayay ku sheegeen doorashada ururada siyaasadda. arrinka ururada siyaasaddu waa qodobka ugu weyn ee mucaaridku ay ku diidan yihiin xukuumadda Somaliland, waana markii koowaad ee Somaliland uu ka kaco khilaaf salka ku haya arrimaha ururada siyaasaddu. labada xisbi mucaarid ayaa guud ahaanba ka soo horjeestay in la furo wax urur siyaasadeed waqti xaadirkan, iyaga oo sheegay in aan laba haynin wax xeera oo doorashadooda lagu qabto. qoraalka xisbiyada ayaa sidoo kale daadifeeyey go'aankii maxkamadda sare ka soo baxay 16 bishii koowaad ee sanadkan 2022, kaas oo ay sheegeen inuu yahay mid aan gebi ahaanba qeexin 1. xilliga la qabanayo doorashada ururada siyaasadda. 2. go'aankii maxkamadda laguma sheegin bay yidhaahdeen, isla mar ahaantaana laguma caddayn in doorashada ururada siyaasaddu ay ka soo horumarayso ta madaxtooyada. 3. sidoo kale maxkamadda ayaan dejin xeerkii lagu dooran lahaa ururada iyo xisaabta qaranka, iyada oo sidoo kalena laashay kii horey loogu maamuli jiray doorashada ururada. xisbiyada ayaa tahay qaabka ay tahay in loo galo doorashada ururada siyaasadda iyo xeerarka ay tahay in loo raaco. sidoo kale qoraalka ayaa lagu xusay sida uu madaxweyne Biixi u doonayo in loo galo doorashada ururada iyo xisaabta. waxaana labada xisbi mucaarid doodooda ku aadan ururada siyaasadda ku soo koobeen 3 qodob oo kala ah: 1. ma jiro xeer lagu maamulo doorasho toos ah oo ay galaan ururo siyaasadeed iyo xisbiyada qaranku. 2. si ka duwan doorashada madaxtooyada ee muddadeedu caddahay, ma cayina maalinta ay dhacayso doorashada ururadu, iyada oo qabashadeedu ay ka soo horjeedo xeerarka iyo curfiga hannaanka dimuqraadiyadda. 3. doorashada ururadu farsamo ahaan iyo sharci ahaanba maaha suuragal waqti xaadirkan, maadaama oo xeerkeedu uu dhigayo in 7 bilood ka hor hawshooda la sii galo. xisbiyada ayaa sheegay in loo baahan yahay xeer cusub oo lagu maamulo doorashada ururada, maadaama oo kii hore la laalay. arrinta saddexaad ayaa ah komishanka doorashooyinka. qoraalka xisbiyada oo arrimihii lagu soo hadal qaaday ay ka mid ahayd arrinta komishanka doorashooyinku ayaa lagu sheegay in xukuumadda Somaliland ay faragelin ku hayso arrimaha guddiga doorashada, iyaga oo sidoo kalena xukuumadda Somaliland ku eedeeyey in ay cabsigelin ku samaysay komishankii hore ee doorashada. sidoo kale labada xisbi mucaarid ayaa sheegay in aanay xukuumaddu diyaar u ahayn soo dhammaystirka xubnaha dhinaceeda ku dhiman. qodobka afraad ayay ku sheegeen kutumashada xuquuqda aasaasiga ah. inkasta oo garnaqsiga mucaaridku uu badnaa dhanka doorashooyinka iyo khilaafka ka taagan arrinta ururada, haddana geesta kale waxaa jira qodob ay ku sheegeen isla mar ahaantan ay kaga hadleen arrimaha ay xukuumadda ka tirsanayaan, sida xadhigga, jirdilka iyo arrimo kale oo ay ku eedeeyeen
inay xukuumaddu ku kacday. guud ahaanna doodda labada xisbi mucaarid ayaa ku soo biyashubatay in aanay marnaba aqbali doonin muddo kordhin loo sameeyo madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo muddo xileedkiisu uu gunaanad ku sii dhow yahay. sidoo kale xisbiyada ayaa si cad uga soo horjeestay doorashada ururada siyaasadda xilli guddidii kala reebista ururadu ay wadaan hawlihii diiwaangelinta ururada. tan ayaa ka dhigan laba kaclayn kale oo ay samaysay xiisaddii siyaasadeed ee Somaliland ka taagnayd labadii bilood ee la soo dhaafay. waxaana hadda bannaanka timid in labada dhinacba si weyn ugu kala fogaadeen xal u helidda arrimaha muranku ka taagan yahay. geestoodana xisbiga muxaafidka ee Kulmiye oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in ay iyagu mar kasta ku taagan yihiin sharciga, isla mar ahaantana ay mucaaridku yihiin kuwa ku doodaya sharci darro. wasiirka arrimaha gudaha ahna guddoomiye ku-xigeenka xisbiga muxaafidka ee Kulmiye Maxamed Kaahin Axmed oo warbaahinta Hargeysa kula hadlay ayaa sheegay inay mar kasta ka xisbi ahaan diyaar u yihiin wada hadal ay la galaan xisbiyada mucaaridka Somaliland. Joe Biden waa madaxweynihii 46aad ee talada dalka Mareykanka qabta, waana ninkii ugu da'da weynaa dhammaan intii loo cimaamaday xilka dalkaasi ugu sarreeya. mar kasta oo qofka da'diisu sii badatana waxa geesta kale sii yaraada xasuustiisa, iyadoo xanuunaduna ay saf u soo galaan. haddaba saxaafadda reer galbeedka ayaa muddooyinkii u dambaysay qoraysay inuu madaxweynuhu la ildaran yahay xanuuno dhanka xasuusta ah iyo weliba kuwo kale oo wadnaha ah. Tucker Carlson oo ah falanqeeye ka howlgala telefishinka caanka ee Fox News ayaa sheegay in madaxweyne Biden uu si joogto ah u qaato dawooyin dhanka xasuusta ah, kuwaasi oo ka hor inta aanu gelin kulamada iyo weliba hadal jeedintiisa saxaafadeed uu qaato, iyadoo haddii aanu daawadaasi qaadanin ay meesha ka baxayso xasuustii iyo kala garashadii madaxweynuhu. wargeyska caanka Daily Mail oo ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa sheegay in arrintan laga ogaaday kooxdii ololaha Biden la gashay sanadkii 2020, kuwaasi oo soo tabiyay in marar badan uu Joe Biden wajahay xaalado adag kadib markii uu qaadan waayay dawooyinkii uu ku tamarin jiray. sidoo kale wargeyska ayaa sheegay in dhakhtarka gaarka madaxweyne Biden uu kula taliyay inuu si joogto ah u qaato dawooyinka wadnaha, kuwa kolestaroolka iyo weliba qaar ka mida kiniinada loo cuno xasaasiyadda, iyadoo intaasi ay sii dheer tahay qaadashada kiniinkii xasuustu. waxaana baadhitaanno badan oo la mariyey lagu ogaaday in Biden uu halis badan geli karo xilli kasta, maadaama uu xanuuno kala duwani ay mar kaliya jidhkiisa ku wada kulmeen. dhakhaatiirta ayaa madaxweynaha kula talisay in uu aad u ogaado nasashada iyo weliba in uu ka dheeraado wax kasta oo ku keeni kara sare u kac ku yimaada garaaca wadnihiisa, iyada oo kooxda caafimaadka ee aqalka cadina ay si joogto ah uga warqabaan xaaladdiisa. hayeeshee arrinta marar badan bannaanka keentay xanuunnada uu la ildaran yahay Biden ayaa ah dhacdooyin siyaabo kala duwan uga dhacay goobo caama oo uu ku sugnaa. sannadkii hore ayay ahayd markii uu Biden tiraba dhowr jeer ka siibtay sallaanka diyaaraddiisii uu korayey. sidoo kale sannadkan gudihiisa ayay ahayd markii ay warbaahinta ogaatay gobol warqada oo uu madaxweynuhu ku soo qortay qish la xidhiidha arrimihii uu qaban lahaa xilli uu ku sugnaa hoolka saxaafadda ee aqalka cadda. warbaahinta iyo guud ahaan cid kasta oo si weyn uga warqabta xasuusta iyo hoos u dhaca caafimaad ee Biden ku yimid ayaa su'aal gelinaysa sida uu sii wadi karo hawlihiisa shaqo, maadaama uu xukunka sannad iyo badh uu joogo, iyada oo weliba xilligan uu yahay mid xasaasiya oo adduunka ay ka soconayaan isbeddello xooggan, kuwaasi oo lagu tilmaami karo duufaanno la mid ah tii dhacday bartamihii qarnigii 20aad. tan iyo markii uu dhammaaday dagaalkii qabooba ee adduunka, isla mar ahaantana ay meesha ka baxday dawladdii salka ballaadhneed ee Sofiyeetku, reer galbeedku waxay ahaayeen kuwa keliya ee leh saamaynta dhaqaale iyo weliba midda ciidan ee caalamka. reer galbeedkaasi oo uu Maraykanku burtuur u ahaa waxay noqdeen kuwo iyagu guud ahaanba caalamka hormuud u ah, iyaga oo waayay cid kasta oo labaysa ama la gasha tartan la mida kii qaboobaa. duulaannadii uu Maraykanku ku qaaday dalalka Afghanistan iyo Ciraaq waxay ahaayeen kuwo si cad u muujiyay in Washington cidday doonto weerari karto, isla mar ahaantana aanu jirin dal soo labeeya oo ka hor iman kara danaheeda caalamka. hayeeshee sannadadii u dambaysay waxaa bannaanka u soo baxay in haybaddii iyo hoggaamintii reer galbeedka ee caalamku ay hoos u dhacday, iyada oo si dadban u soo rogaal celiyey dagaalkii qaboobaa oo haatan weji kala yeeshay. ra'iisul wasaarihii hore ee Ingiriiska Tony Blair ayaa si cad u sheegay in reer galbeedku ay sii luminayaan saamayntii caalamka, isaga oo qiray in dagaalka Ukraine uu daha ka fayday sida reer galbeedka looga adkaaday. Blair ayaa sheegay in reer galbeedku aanay ku jirin wax horukaca
halka Shiinaha iyo Ruushkuna ay wadaan horumarkii ugu ballaadhnaa abid, isagoo xusay in la joogo gabagabadii xukunkii reer galbeedka. Ra'iisul Wasaare Tony Blair ayaa si gaar ah uga digay in cidda reer galbeedka booska kala baxaysa aanay ahayn Ruushka, balse ay tahay Shiinaha oo uu ku tilmaamay dal dhaqaalihiisu dhidabada u aasay isla mar ahaantaana la yimid galaangal aan noociisa horay loo arag. taariikh ahaan Shiinuhu kamuu mid ahayn quwadihii dunida ku loolamay qarnigii 20aad, iyada oo la xasuusto in dhaqaalaha Beijing uu sanadkii 1979 la mid ahaa ka Talyaaniga, balse wax walba ayaa dhinac kala noqday kadib markii uu la yimid hal abuur iyo maalgashi nooc walba isugu jira. Shiinuhu hadda waa quwadda labaad ee dhaqaalaha adduunka, balse sida uu Tony Blair u qabo waxa la filayaa inuu Shiinuhu booska koobaad ka qaado dalka Mareykanka, isla mar ahaantaana uu caynaanka u qabto guud ahaanba wax soo saarka caalamka, iyadoo reer galbeedkuna ay noqon doonaan dabaqadda labaad ee adduunka. sidoo kale dalalka Iiraan, Turkiga iyo Ruushka ayaa ah quwado kale oo laftooda aan la dhayalsan karin, maadaama ay hadda leeyihiin quwad dhaqaale iyo mid ciidan oo aad u xooggan. reer galbeedka ayaa guud ahaanba ku guultaraystay cunaqabatayntii ay saareen Ruushka kadib markii ay cunaqabatayntaasi waxba ka bedeli weyday xaalka dagaalka. in waqti xaadirkan ay reer galbeedku qiraan jab iyo weliba hoos u dhac ku yimid awooddoodii caalamka ayaa lagu macneeyay dhawaaq aan sahlanayn, iyada oo Mareykanku uu mar horeba sheegay inuu soo afmeeray joogitaankiisii ciidan ee dalalkii uu duulaanka ku qaaday, kuwaasi oo ugu dambeeyey dalka Afghanistan.